Halkan waa xabsiga dhexe ee dalka. Waa meesha ugu badan ee lagu xiro dambiilayaasha iyo kuwa eedeysanayaasha ee maxkamadda sugayo. Waxaa jiro shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab balse halkan ku xiran iyagoo ku xukuman dil toogasho, xabsi daa'in iyo kuwa muddo dheer lagu xukumay sida 10 sano iyo ka badan. Laakiin taas ka sokow maxaa kale oo halkan ka jira waadan ogeyn. dad shabaabka ka soo goostay inay meesha tashkiil iska bilaabaano ama daacish ha noqdaano sababtoo ah dad labadii sano ee ugu dambeysay ururka Al-Shabaab iyo Daacish waxay ku yeesheen xabsiga awood toogan. Tani oo ah mid maskaxeed looguna gudbinayo fikirka xagjirnimada. Ururadan ayaa maxaabiista ku xiran muddada xabsiyada yaryar ay ka dhaadhiciyaan inay ururkooda ay ku biiraan islamarkaana lacaga lagu siiyo si ay ugu mid noqdaan kooxaha Daacish ama Al-Shabaab. Inkastoo Shabaab iyo Daacish labaduba ay yihiin ururo argagixiso, haddana waxaa ka dhexeeya loolan adag oo ah cidda talada koowaad ku yeelanaysa xabsiga dhexe. Waxaa jiro shakhsiyaad loo soo xiro dambiye kala duwan oo aan wax xiriira kala dhexaynin kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab, balse markii ay xabsiyada lagu sii deynayo waxay ka baxaan iyaga oo midkood aaminsan fikradaha Daacish ama Al-Shabaab. Taasi waxaa loo saweynayaa oo fududeysay koox ku jirta xabsiga kuwaasi oo Al-Shabaab iyo Daacish u qaabilsan u fadwadeynta ama ku beerista kooxahan iyagoo u isticmaalayo cabsigelin, dhaqaale iyo ka dhaadhicinta fikradaha xagjirnimada. Dowladda Soomaaliya si ay fikirkan u soo afjarto waxay ka baadigoobtaa maskaxda ka dambeyso magaalooyinka ama deegaanada kala duwan. Laakiin xabsiga dhexdiisa ayaa howl halisteeda wadata ka socotaa waqtigan. Waxaan la hadlay mid ka mid ah maamulka xabsiga waxa uu ii sheegay in ururadan ay awood weyn ku dhex leeyihiin gudaha xabsiga dhexe. Waa kan isaga oo ka hadlaya arrintan. qof walba dharcada ka shaqeeya xabsiga gudihiisii wuxuu ka tirsan yahay maxaabiista laga soo xiray shabaab. Ha ku xirnaado xabsi daa'in ama ha ku xirnaado xabsi muddo 10 sano 15 sano muddo qaadata. marka waa rag haya xafiisyada furahoodii sida xafiiska taliyaha oo kale iyo xafiisyada kale nadaafadda xabsiga iyo xafiiska ka shaqeeyo. waa rag maalinka booqashada jirto dadka soo booqahayo maxaabiista iyo dad kale isku xirka iyo nidaaminta iyo ka shaqeeyo. waa rag nidaamka cunno siinta maxaabiista ka shaqeeyo. waa nidaam haddii hay-ad imaado kale ama program imaado kale xabsiga laga fulihayo markay imaadaan oo kale soo dhaweynta markay taliyaha soo maraan ayaga lagu wareejiyaa kuraasta u dhigayo soo dhaweeyayo xabsiga qaybihiisa kala tusid markay sameeyaan kala daba socahayo xabsiga xilliga rabaan qayb walba qaybta kale ugu gudbaayo. waa smartphone telephone wataan xoog badan marka inay gudbiyaan u saaranaysa qofka imaaday meesha ka imaaday qofka imaaday wuxuu yahay qofka imaaday shaqada meesha ka qabahay haddii ay jirto muddo oo ku soo laabahayo waqtiyada soo galayo all of information ko dhan gacanta ay ku hayaan si ay hadafkooda ugu dhabeeyaan. Ururkan waxa uu mas'uulkan inoo sheegay inay iska dhigaan kuwa ugu jilicsan ee maxaabiista uguna xooga furan uguna dulqaadka badan si aan looga shakinin marna fikradaha khilafsan ee ay ku dhex faafinayaan xabsiga dhexe. shabaabka ka soo goostay inay meesha tashkiil iska bilaabaano ama daacish ha noqdaano sababtoo ah dadka maxaabiista lagu soo xiray oo dhaqan celinta ahayo kale ama kuwa tuuganimada lagu soo xiro kale ama kuwa askarta ciqaabta geysto kale lagu soo xiro dambi nooc walba noqdo maxbuus la soo xiro waxaa ku dhex miran dad lagu soo xiray argagixisnimada xabsi daa'in ama xabsi xil suga ah oo muddo suga ah inuu noqdo. marka way suurageli kartaa marka in tashkiilis iyo wacyigelin meesha ka bilaabaano dadka meesha ka baxay muwaadiniinta wato in hadhow meesha ay ka baxaano. teeda kale taleefanada way wataan dadka meesha ku jiro oo shabaabka lagu soo xiray. waxyaabaha u suurageliya marka inay connections cusub iyo team cusub inay abuuraan waa taas sabab u noqon karta. Rag ka tirsan Al-Shabaab balse ku jira xabsiga dhexe hadda waxay si toos ah u isticmaalayaan taleefanada smartphone-ka. waxay si toos ah ugu dhex muuqdaan baraha bulshada iyagoo isticmaalayo magacyo kala duwan. taasi oo mar kale qayb weyn ka qaadanayso faafinta fikirka xagjirnimada.